sheekh yaxya binu mucaad buu ahaa muxadisiintii buu ahaa taabiciinta markuu dhintay ayaa manaam baa lagu arkay manaam dadkii wan wanaagsan way is arkayeen moogtahay dadka iminka dhoof bay ku riyoodaan dhoof isagoo badii ka tallaabo talyaaniga galo ku riyoon mid markaasuu anu wallaahi waan arkay anoo yurub galo waa sii socdaa salaama wariyadaad aragtay ma run baa dee wixii maskaxdaada ku jira unbaa habeenkii shaydaanku kaa soo dhex saaray dadkii wan wanaagsanaa jannaday arkayeen oo qiyaamahay arkayeen oo ilaahay wejigiisay arkayeen culummada qaarkood rag baa ilaahay daatadiisa arkaya habeenkii markay seexdaan rag baa habeen walba nebi maxamed la kulmaya calayhi salaatu wasalaam yaxya binu mucaad baa ka mid ahaa markuu geeriyooday ayaa manaam lagu arko lagu yidhi yaa sheekh yaxya nin waacida oo muxaditha oo zaahida oo ummaddu jeceshahay baad ahayde maa facala allaahu bika maxaad rabbigaa kala kulantay noo sheeg baa lagu yidhi markaasuu yidhi fudixtu waan ku fadeexadoobay buu yidhi banka qiyaamaha oo ilaahay baa iigu yidhi soo qabta yaxya ii keena waa lay horgeeya ilaahay markaasaa ilaahay igu yidhi shaykhaagan xun maanta camalka aad agtayda soo dhigatay eed isleedahay waad ku badbaadaysaa sheeg baa laygu yidhi buu yidhi markaasaan idhi yaa rabbi 36 xaj ayaan carafo joogsaday oon agtaada soo dhigtay markaasaa ilaahay igu yidhi midna kaamaan aqbalin sheeg camal kale markaasaan idhi yaa rabbi 63,000 oo khatma qur'aaniya ayaan soo khatiman wataa markaasaa lagu yidhi midna kaamaan aqbalin waan kugu soo celiyey sheeg wax kale markaasaan dhulka eegay markaasaan is idhi dee camalkeen kaloo sheeganba labadii camale islahaa waad ugu rajo fiican tahay waa 36 xaju carafo istaagay iyo 63,000 oo khatmata alqur'aana intiiba markii laygu soo celiye layidhi lagaama aqbalin laygu yidhi ayaan madaxa ganoodiyey oo laygu yidhi welibana kor u taag madaxaago camalka aad agtayda soo dhigatay maanta aad leedahay waad ku badbaadaysaa itus markaasaan idhi yaa rabbi hee anu waxba ma wato waxba ma soo qaadan ba hee adigaan ku imid bas waxaan garanayay inaan u tagaaya rab kariima ghafuura shakuur raxiim sataar xaliim latiif cafuwun ghafuur rabbiga sifaat kaale inaan la kulmaayo ayaan garanayo waxba ma watee yaa rabbi anigu adaan ku imid bas markaasaa ilaahay gu yidhi haddaad ii timidee waan kuu dembi dhaafee jannada gal markaa raxmaddii ilaahay baan jannada ku galay dadka u sheegay buu yidhi hadday waa taabiciintii waa zuhaadii waa muxadisiintii waa salafu haadihi alumma xasan albasri maantaan akhrisanayay maanta xasan albasri wuxuu yidhi 30 sano ma qoslin 40 sanana hadal maa laa yacni oo kaftana kuma hadal buu yidhi inagu maalintii imse jeer baan kaftannaa imisaan caytamaynaa imisaan ummad xamanaynaa imisaan waxaan doonna eegaynaa imisaan waxaan doonna maqlaynaa laqad adraktu aqwaaman waxaan soo gaadhay aqwaam buu yidhi aqwaam waxaan soo gaadhay waa saxaabadii rasuulka raggaan ka soo gaadhay markaan la joogay waxaan ku dhex ahaa buu yidhi tuug baan ku dhex ahaa buu yidhi tuug waa xasan albasri baa hadalkaa leh ayna naxnu maanta halkeen joognaa maanta ilaahay hanu toobad keenno zaman adag baan ku jirnaa zaman adag muslimiinta waxun baa ka sii dhacaya muslimka maanta mar iyakii laysku diro mar iyaku ay iscaayaan iyo mar iyaku ay isdhammeeyaan waabaan ka sii xag jirnaa inakuna soomaali haddaan nahay wixii dalkeenna 40 sano ka horaan ku baabi'inay ayaa ilaa iminka dalkeenni iyo dadkeenni ka dhex socda qabyaalad soomaali diintiisu waa maxay waa qabyaalad waa ta halkaa ina dhigtay weeyaan waa ta ummadihii inaga reebtay weeyaan طريق الوحيد طريقة كلية ما أنت أمد أي كبد باديسو وطريقة المصطفى عليه الصلاة والسلام الرجوع إلى الدين لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها أمدا آخر كيكو ما يصلح حيثو إلا أول كيكو محوكوها قاقي موياني أول كي أمدا محوكوها قاقي يقين يزهد ما يمدكوها قاقتي آخر كي أمدا محوكو فسادينا البخل وطول الأمل بخل
inuu qofku dhaqaalihiisii caqligiisii cilmigiisii waqtigiisii uu kala baqayla aakhiradiisii iyo diintiisii iyo inuu ku noolaado tuulul amal hididila dheeri waan noolaan doonaa waan jiri doonaa waan gaari doonaa waan dhisi doonaa war waxaasi shaqadaada maahayna waxaa kaaga horaysa waan dhiman doonaa berri tola caawa gabalku ii dhici maayo aniga waa inaad tidhahdaa dariiqadaas rujuuc ila diin baa la rabaa ummadda in lagu soo celiyo maanta dariiqata alwaxiida dariiqada keliya ummaddu ay diinta ku soo noqon kartaa ay ummaddu diinta ku qabsan kartaa waa maxay waa dariiqatu dacwati waalcilmi labadaa oo wada socda oo kala socda maaha labadaasoo wada socdaa ummadda ku badbaadin karnaa maanta inaan muslimka dadka muslimiinta ee waaweynna ee joogana inaan dacwadda ku soo qabanno dacwaddu waa maxay ummadda waxaan uga yeedhaynaa shirkigaan uga yeedhaynaa iimaankaan ugu yeedhaynaa khafladdaan uga yeedhaynaa dikrigaan ugu yeedhaynaa jahligaan uga yeedhaynaa cilmigaan ugu yeedhaynaa dulmigaan uga yeedhaynaa ixsaanka iyo cadaaladaan uga yeedhaynaa alsumcatu waalriyaa baan uga yeedhaynaa ikhlaaskaan ugu yeedhaynaa dadaalka adduunyada ay ummaddu ay ku dhex dhacday ee dharaariya habeen adduunya laga fikirayo ayaan ka soo dhex qabanaynaa dadaalka diintaan ummadda ugu yeedhaynaa suuqaan uga yeedhaynaa masaajidaan ugu yeedhaynaa adduunyadaan uga yeedhaynaa aakhiradan ugu yeedhaynaa jahaladu caamada iyo siyaasiyiinta iyo qabyaalis iyo casabiyiinta ay ku xidhan yihiin ayaan uga yeedhaynaa caamada waxaa leena kaalee culummada ku xidhma culummadaad ku daba liibaanaysaan hada huwa طariiqaة dacwa inay diintu fido dacwadda u sababa inay diintu baaqi noqotana cilmiga u sababa haddaan doonayno zamankan maanta aan joogno in dadka muslimiintuna masaajidda u soo noqdaan gaaladana intii ilaahay hidaayadda ugu talagalay ay soo hanuunto islaamnimaduna ay quwad yeelato haddaan doonayno waa inaan dacwadda ka shaqaynaa waa inaan ilaahay dartii maalkeenna nafteenna wakhtigeenna aan ku bixinaa dacwaddu waa maxay haddaan soo marnay dacwad hadda maaha dacwatani tan waa wacdi weyn waa wacdi waa tadriis waa tacliim waa tadkiir dacwadu waxa weeyaan waa maqaaxyihii iminka jawladdaan soo samaynayna magaxood baa maqaaxyaha magacoogii shaah macaan dhallinyaradeenii oo aan warba wahaynba qaarkood aakhiro inay aakhira jirtaba kama war hayaanba dacwad taasa leh dacwad waa taas miskiidka haddaad kitaab ka marinayso waa tacliim miskiidka haddaad muxaadaro ka jeedinayso waa tacliim miskiidka bayaanada ka jeedinayso waa tacliim dacwad waa maxay waa jawlaad ina laka fi الnahaari sabxan طawiila dabaal dheer baa ku ahaataa nebiga lagu yidhi maalintii dabaal dheer aayaddu waa maki awaa'il الآيات التي أنزلت على المصطفى في حياة مكية في سورة المزمل ويان ما قال هذا مكبد ملئ بدوا نبي قد احدى بالنا وابدي ومجتمع نيك اللقينا يا برق اللقينا يا نيك بد كل حجري دبالنا يا اسكو صعد معها نيك برق اللقينا يا حدو دالو عدعدو أي قبطو جيد هاد معان بو يغنو وكنا سن عدعدو مركا كجبتنا وسكا عرابي سو صدا معها وصير بلانك أو صعدا كبد كجري دبالنا يا دباشا مركلي وجوجين كرا وامركو بدا كبحو هدو اسقو بدوينت كجرا ودباش جوجي محا دعي ان لك في النهار صبحا صدح يلا باتسنا نبي لغو يري ددال وحا نبي لا سيو لا امريد لغا عبري دبال حسيحن هنسن همرغو هفرحن هقسلن saxaabadiisa kolkuu la joogo u yadhoo la cadaynayay bas yadhoo la cadaynayay waqtigii baa noo dhownaa jazaaka allah khayr waxaa laga cabiray nebiga sal allahu alay wasalam dadaalkiisii dabaasha goormuu ka baxay maalintii sankaraadku qabtay ee faaduma ay tidhi waa karba abataah wuxuu yidhi laysa calaa abiiki karabun bacda alyowm yaa faaduma aabbaha maanta kurba iyo dhibaato ugu dambaysay buu yidhi khalaas baddii waan ka soo baxay weeyaan iminka khalaas ila arafiiqi alaclaa ilaa jannati alfirdows
ما أنت يقول دم بيسوي ودي باتدنا بخلاص خلاص إنا حدان دونينا دعوة ولا ليال دتك إنا كود دلنا ويان حدان دونينا أجيال دتك صوص صعدة ما أنت علماء وافر كترس دكتور ردي علماء متكبدا إنجنير ردي علماء دنا سياسيين تي علماء دنا سومالي دورت إلى خير با سياسي إسكت دوا حكله ما دام علماء أي مجتمع كويرتهاي وعادوا قاته هوس بنصعنا أنت علماء الربانيين تا إلهي كحرا أمد إلهي حقي سأوجدين أي نقول يرتهي الشريعة إنه هاي أنت أيريين تردوا لقبل تربنا ياهي هوس بنصعنا وقالوا وان دراسينا أمد وحي كل نقطة أمد نمو وهذا علم الدين تهي ستوي